saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan Salaam Academy ee barashada luqadda Carabiga. waxaynaanu ku guda jirnay ficilkii maadi ama ficilkii hore loo sameeyey waxaana inoogu dambeysay calima wuu ogaaday carifa wuu gartay shariba wuu cabay farixa wuu farxay qabiila wuu aqbalay halkaasoo aynu isu raacinay higaadiisa iyo markaasi macnahaba ficiladii aynu soo dhiganay ee 13 ficil ahaa ee maadi ee markaasi hore loo sameeyey waxay ka dhigan tahay oo uu si dhaba u tilmaamayaa warbixin lagaga warbixinayo ruux labooda oo markaasi hore u sameeyey ficil. iminkii haatan waxaanu baranaynaa taa taaniis asaakina taada dhadigoodka ah ee markaasi sikuunta leh ama signaha lagu reebay sida calima wuu ogaaday calimat way ogaatay halkaas uu ka raacayo xarafka ugu dambeeya ee fadxaha leh maadaama uu ficilka maadi ee tegey dhammaantiiba xarafka u dambeeya uu yahay maftuux amase mid fadxa leh ama kordhow leh halkaas oo uu noqonayo calima miimka u dambeeya ee fadxaha leh ma mid lala xidhiidhinayo ta'da dhadigoodka ah markaasi lagaga warbixinayo ficil hore u samaysay ta signa leh at calimat way ogaatay carifat way garatay sharibat way cabtay farixat way faraxday qabiilat way aqbashay. iminkii haatanna ta'dii dhadigoodka ahayd ee sukuuta lahayd ayaynu isku dayeynaa inaynu la xidhiidhino ficiladii maadiga ahaa ee markaasi hore loo sameeyey. dahaba waa uu tegey dahabat way tagtay kharaja wuu baxay kharajat way baxday dakhala wuu galay dakhalat way gashay fataxa wuu furay fataxat way furtay qara'a wuu akhriyey qara'at way akhriday kataba wuu qoray katabat way qortay rafaca kor buu u qaaday rafacat kor bay u qaaday anzala waa uu soo dejiyey anzalat way soo dejisay calima wuu ogaaday calimat way ogaatay carifa wuu gartay carifat way garatay shariba wuu cabay sharibat way cabtay farixa wuu farxay farixat way faraxday qabiila wuu aqbalay qabiilat way aqbashay. sideedaba kelmaddu waxay ka kooban tahay xuruuf. haddaynu eegno kelmadda dahaba waa kelmad kala go-an sababtoo ah xarafka daal ma aqbalo inuu la xidhiidho xaraf kale gadaashiisa ama dhankiisa bidix. kelmadda inteeda kale way xidhiidhsan tahay oo ay ka mid tahay ta'da dhadigoodka ah ee sukuuta wadata ama signaha lagu reebay. kelmadda kharajana way kala go-an tahay sababtoo ah xarafka raa ma aqbalo inuu la xidhiidho gadaashiisa xaraf amase dhankiisa bidix islamarkaana raadu waxay ka dhigaysaa sadarka. kelmadda dakhala waa kelmad kala go-an sababtoo ah daal ama deelku ma aqbalo inuu la xidhiidho xaraf gadaashiisa amase dhankiisa bidix. laamkuna waxay ka dhigaysaa sadarka amase laynka halkaasoo dakhalad ay noqonayso mid la xidhiidha taada dhadigoodka ah ee signaha wadata ama sukuunta halkaasoo daalku uu kala gooyey sidaynu horeba u sheegnay oo aanu aqbalaynin in xaraf gadaashiisa ka raaco amase dhankiisa bidix. haddaynu usoo noqonno kelmadda fataxa way xidhiidhsanta xuruufteedu xarafka xaa waxuu ka dhigayaa laynka fataxadna way xidhiidhsan tahay dhammaanteedba taasoo ay ka mid tahay ta'dii dhadigoodka ahayd ee sukuuta wadatay ama signaha lagu reebay. kelmadda qara'a way kala go-an tahay sababtoo ah ra'du ma aqbasho inuu la xidhiidho gadaasheeda xaraf ama dhankeeda bidix halkaasoo ay qara'at ay kala go-an tahay sidoo kale sababtoo ah ra'da laynka ka degaysa ma aqbalayso inuu la xidhiidho gadaasheeda xaraf alifkuna sidoo kale ma aqbalo inuu kala xidhiidho gadaashiisa xaraf sidaa awgeed ayuu ku diiday inuu la xidhiidho ta'da dhadigoodka ah ee sukuuta wadata ama signaha lagu reebay waxaanu wataa alifku hamsi iyo xarakad fadxa ah. haddaynu usoo noqonno kelmadda kataba way xidhiidhsan tahay xuruufteedu sidoo kale katabat way xidhiidhsan tahay xuruuf
xuruufteedu, halkaasoo uu kaafku noqonayo bilowga kelmadda mid loo qoro sida tan, bartamahana waxaa loo qorayaa sida tan, haddii uu dambeeyana waxaa loo qorayaa sida tan. kelmadda rafaca way kala go-an tahay sababtoo ah ra'da ka degaysa laynka ma aqbasho inay la xidhiidho gadaasheeda xaraf, inta kasoo hadhay way xidhiidhsan tahay, waxaana ka mid ah taa-u ta'niis, ta'dii dhedigoodka ahayd ee signaha wadatay ama sukuuta, halkaasoo caynku uu markuu bartamaha ku jiro amase uu ugu dambeeyo kelmadda haddiiba uu kala xidhiidhsan yahay xaraf ka horreeyey la xidhayo, intaa wixii kasoo hadhana la furayo. caynka waxaa madaxa loo furayaa haddii uu xaraf ugu horeeyo, halkaasoo labadiisii faraar ee af ay toos u muuqanayaan, iyo marka uu keligii yahay ee aanu xaraf la xidhiidhin. xuruufta ka degaysa laynku waa jiim, xa, kha, ra, za, siin, shiin, saad, daad, cayn, qoyn iyo laam iyo miim iyo nuun iyo wow iyo yaa. xuruufta aan ogolayn in gadaashooda xaraf lagu xidhiidhiyo waa deel, daal, ra, za, wow iyo alif. haddana intaa kusoo gaadhsiiyey kelmadaha hadhay, ku eeg cilmigii aad baratay, wax badan ayaad ka fahmi doontaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.